بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبرنامج كيف فدها ميسان أو مرول بنا إنه كجاه هذا الله وحياله بدن أو ضدك يدلك خصوصية جمهورية الصومال الآن سيبا وحنو بدنا تكوات سينا وحمركها تاجن السعون عيا إن كستو وحياله بدن أكلوا أي تاريخ تيجي دقالها يجي دقن كيجي ديجان كيجي أنتوا بكم دهين أنا برنامج بدن وقول تلقى الله تحنا وصعون دونا إن شاء الله كواسو أنا أحمد علي جيلان قبلنا مركا وحا ما أنت أحمد مشغول وميلبوك مشغول لكن أنا برنامج ما أنت أي كل جي كهذا دونا إن شاء الله وحنا إنه كهذا لأن الله بقى إنه مهم هو ما أنت التاجن مدي وحويان ومدح برنامج ده يو gobonnimada jamhuuriyadda Soomaaliland madax banaani iyo gobonnimo marka aynu leenahay waxaynu u jeednaa marka waa ereyo aynu doonayno inaynu Soomaaliyeeno hadiye jeer dawladaha la xiriiro midna waxa weeyaan independence iyo sovereignty marka labadii baynu Soomaaliyeynay independence waa madax banaani sovereignty-na waxa weeyaan gobonnimo marka dadku marka hore gobonnimada independence bay ay ula jiraan ama madax banaani labada isku macna ka dhigayaan labadii laakiin laba macna ayay kala yeeshay carabiga waxa weeyaan waa xorriya iyo siyaada qofku waa xor marka tahay de sayidna waa tahay laakiin dawladdu waa inay siyaadad yeeshaan siyaasadu waa maxay waa inay iyagu dalkoodii u talinayaan waxay mahma carabiga jirto al-maalu biduni sayyidihi yatim haddii aan xooluhu dinkii lahaa sayidkeedii aan u joogin cid kale gacanta ku hayso agoon buu noqonayaa marka siyaadadu waxa weeyaan marka inaad adigu taladaadii arrinkaagii adigoo xora haddana aad gacanta ku hayso oo waxa jirta adigoo xor oo laga yaabo in arrinkaagii cid kale ku talinaysa gacanta ku hayso marka horta waxaan xaqiijinaynaa Somaliland jamhuuriyadda Somaliland dalka iyo dadka degan la yiraahdo maanta inay xorna yihiin ومدح بنايهين سيدنا يهين وقب يهين وسيادة دودية هايستان سيدان كو عدين مركا لو قادو لو ايغو دالكن سوماليا يلا يداهي اينو مركي هوري بريغي لحدن كيسو تغني ايلان مانتا انو هاد سيدا مربوبتي انو دغي نغا هاديلا لبدا مركا لا اسبر بدغا بانو موجينين كو تكوباد واحد جيره maxaa lagu noqdaa horta xor gobonnimo lagu noqdaa waxa weeye xor waxaad ku noqonaysaa inaan cid ku talinaynin inaan cid ku taladaadii aanay marka de qofku de abdi buu ahaa maartay wixii de u gaa maartay ku soo laakiin marka aad adigi aan cid ku talinaynin aad taladaadu haysto sayidna maxaad ku noqonaysaa ama sovereign waa sovereignty-gaagi maartay aad ku yeelanaysaa waxa weeyaan marka talada adigu aad leedahay gacanta ku haysato cid kale aanay soo fargelin karin batatan waa inaan cidina ku soo fargelin karin waana talayraho maartay waxa marmarna waxa u bogaan af Ingiriisiga sovereignty-ga integrity and territorial integrity sovereignty and territorial integrity bay israaciyaan Somaliland waxay leedahay waxa jira wax la yiraahdo Montevideo Convention markaynu soo qaadno waa convention lagu heshiiyo dunidu ku heshiisay muxuu yahay qaran jira qaranka jira shuruudihiisu waxa weeyaan dhow shuruudood oo ilaa 4 sano baa ugu weyn horta kow dhaqankaasi waa inuu jiro meel ku yaala juqraafigaasi waa inuu xuduud leeyahay xuduudahaasi waa in dad ku nool yihiin dadkaasi ku nool waa inuu maamul leeyahay maamulkaasi waa inuu nabadgeliyo ku dhaqan yahay oo uu kula dhaqmayo dadkiisa iyo dalalkan ay jaarka yihiin xuduudihiisana ka adag ilaalinaya Somaliland intiiba way ka soo baxday waxa weeyaan waa dal juqraafigiisa la yaqaan waa dal xuduud leh waa dal maamul leh waa dal maamulkiisa gacanta ku hayo oo dadkiisina ay soo doorteen oo waliba doorashooyin dimuqraadi ay ka dhacaan waa dal nabadgelyo ka jirto nabadgelyada kula nool dadkii xuduudaha ay wada lahaayeen intaas marka aad Somaliland ay ka taagan tahay
وهي سيدا مدح بنان النقدين وعن عدنا مدح بناني دودين مغان واهين waxaynu barbar dhigaynaa bal Soomaaliya oo bariga hore aynu maartay marde wuxuu qabsanay iyadoo de shan Soomaaliyeed la baadi doonayo shantii Soomaaliyeedna ay noqotay waxaan jirin marka waxa jira xikmad Ingiriisi oo tira what's real cannot be threatened what's unreal does not exist what's real cannot be threatened markaynu af Soomaali ku macnayno waxa weeye wixii jira dhab ah xaqiiqa ah lama hadidi karo lama waxba lama yeeli karo waxyaalo kuma soo dhici karto marka taasi waa Somaliland weeyaan oo de Somaliland waa xaqiiqa aan cidina maanta waxba yeeli karin what's unreal does not exist dhinaca kale waa Soomaaliya de wax jira maaha oo de waa waxa ay UN trustship ki bariga hore ahaan bihiin waxaana laga xukumaa xalane waxaana xukumaa qajimada qurmaa ka dhaxaysa iyo qoladan EU-da iyo Mareykanka intaas xukunta iyadoo waxa la yaab la taasi Xasan Sheekh oo qiray maalintii dhaweyto Xasan Sheekh wuxuu yiri manihin gobni yani gobni marka waxa weeyaan de mana madax banaana gobni maaha waxa militarigeedu waxa masruufa dawladaha ajnabiga iyo Mareykanka iyo oo yeenkii loo soo marinay shaqaalahoodii bay masruufaan baarlamaankoodii bay masruufaan mataarkoodii dad baa gacanta ku haya oo amnigoodii gacanta ku haya oo waxa jooga kuwa la yiraahdo barnaamij oo baa loo jiray kana atmis baa la yiraahdo ayaa nabadgelyadoodii gacanta ku haysa waa kii wasiirkii hore wasiirka khaarijida ahaan jiray ninkii Saciid loo jiray wasiirka khaarijida ahaa dowladda farmaajo waa kii isna hadlaayay maalin video laga wareysanayo yiri manihin maartay dowlad gobonimo iyo siyaasad manihin waayo dalkii territorial integrity ga aynu leenahay Soomaaliland nima kaleeda ay xukunto ayaanay lahayd haddaba maxaa dhacay Soomaaliland cadowgeedii doonayay in uu waxyeeleeyo muddaba iyadoo si wanaagsan oo nabadgeliya Soomaaliland uu debay ayaa territorial integrity-geedii ay lahayd la soo farageliyay dacdooyinka ma bariga dhaweyto bishii February laga bilaabay oo dadkii reer Somaliland iyo horena loogu hayay in lagu laayo magaalada Laascaanood oo la kiciyo qabiilahan loo soo galo wax loo dul qaataba waa arintii waa qaraxday akhtaa badan ha ka dhaceen maartay si ay u dhaceen xataa dhinaca Somaliland ka timi way dhacday ilaa maantadana waa taas Somaliland ay arin Laascaanood gacanta ku hayso ciidankii jooga ciidanka ka baxalay ciidanku muxuu ka baxaya ciidanka Somaliland wuxuu xaq u leeyahay inuu xuduudadiisa sugo wax jira wax la yiraahdo international law wax jira wax la yiraahdo legal force wax jira quwwa qaanuuniya ama xoog xeerkaaga ku siinaya Allah xeerka dastuurka siinaya xuduudaha in la sugo marka in xuduudaha tagta waa lagama maarmaan iskaba dhaaf halka kalimaadka dalka gudihiisa haddaba waxa jirta maalmii dhaweytay 26 June ilaa kowdeedii markii qoladan reer Soomaaliya ay ka dabaaldegeen in Xasan Sheekh uu munaasabada xafladda la dabaaldegayay uu hadal ka jeediyay hadalkaas uu leeyahay waxa farxad weyn oo ah in Laascaanood laga taagay calankii buluuga ahaa ee xidigta ku taalay calankii buluuga xidigta ku taalay in Laascaanood laga taagay ba farxad weyn noo ah Xasan Sheekh marna wuxuu leeyahay Soomaali waxa marka loo tago Laascaanood iyo Sool waxay ka mid tahay Somaliland gudaheeda way heshiiyeen oo de waxay ku shaqeynayaan fikradan maamul goboleedyo iyo waxoo Somaliland ma oranayaan mar ma iyagu calooshooda maamul goboleed bay waasan laakiin markii ma ayaan xoranayaan Somaliland iyo Soomaaliya marna waa ka imika isagii Laascaanood ka dhigay buqcad yaro maartay calankii Soomaaliya laga taagay marka uu ku faraxsan yahay waxaan xasan u sheegay wararkaas aad madaxweyne u tahay halkaas ku doorato Somaliland kumay dooran Somaliland madaxweyne Muuse Biixi Cabdi bay doorteen madaxweyne Muuse Cabdi baa u madaxweyne Muuse Cabdi baa shar iyo khayr wuxuu leeyahay la xisaabtamaysa adigu halkaas ku dooratay
halkaaga inaad ku sugnaato nintiisaba daryeelaa tu kale ku dara bal taadii baad la taaglaadoo kolkaasaad halka kan oo iyadu isku filan aad faraa la soo gelaysa mana aha meel Soomaaliya calan Soomaaliya halala orordo mar hore iyo mar dambaba sidanaad sheegayso war calankan sidiisubana calan suura gelaya maaha idinku haddaad doonaysaan haysta laakiin xidigtan shanta geesle ku taala shan Soomaaliyeed oo isu imanaya haba yaraatee ma jirto waayo de marka horeba shanta Soomaaliyeed annaga keenay maydaan doonayn idinku waa ka Maxamed Ibrahim Cigaali marka YouTube ku jira video markaan u tagnay may doonayn naga joogay lahaayeen 8 baan u tagno laba jeer baan ku noqonay naga joogay lahaayeen xamaaskii dhabta ah ee reer Somaliland ka ay imika dawladeeda ku haysatay ku ilaashanayso ayaa bariga ku jiray halka ku tagtay kii markaa ay kula soo noqotay maanta dub dambayso ugu masuul galeysay halkaasi ay dub ugu noqoto oo ay Soomaaliya dawlad la samaysto ku iimaansada shantii waxa weeyaan jamhuuriyadda Somaliland waa jamhuuriyadda Djibouti waa jamhuuriyad kililka waa kililkii Ethiopia Kenya NFD wataasoo waxa la yiraahdaa maartay waqooyi barigaas la yiraahdaa idinkuna Soomaaliyaad ereygan Soomaalina dawey naga wada dhaxeeya dadku waa Soomaali laakiin halkan dadka deega waa dadka reer jamhuuriyadda Somaliland halka dadka reer Soomaaliya way waxa kale oo madax banaanideennii muujisay in caalamka u soo jeestay maanta arrintaana waxa keenay xoog halkan oo laga shaqeeyay gudaha iyo waliba dhalinyarada imika ka shaqaysa Twitterku way jabhadu way badan yihiin reer Somaliland dalkooda ka ilaashadaan waxa weeyaan xuduudada oo ciidanka joogo amniga oo booliiska ilaaliya waxa jira ciidamo dhan oo barahan bulshada la yiraahdo oo imika ay tahay kaalmo weyn oo lagu dagaalamo halka ay kaga jiraan dhufayska waxay muujiyeen dhalinyaradaasi wacdaray dhigeen wacdaro ayay dhigeen waxay muujiyeen in ay meel walba ka ridaan oo ilaa 26 Juun maalintii dhawta la dabaaldegay qolooyinka sababta oo ahaa in la dhigo ay aad badan ugu mahadnaqaynaa si wadana waan duleen waa kuwa keenay William Gavinson inuu yimaado qolooyinka berigi dhawto Trafalgar Square keenay UK Alliance la yiraahdo oo dadka halkaasi keenay ninkan Faransiiska ee Olivier Cadiche maantii imika inala jooga ee senatorka ee golaha Faransiiska kala Somaliland waa dal xor ah taaynu sheegayno madax bannaan gobna waana in la aqoonsada xaq bay u leeyihiin wataalkaagiis marka Somaliland wuxuu yiri qoladii u heesi jirtay marka cawska la sameeyo guulale kani galbay Somaliland way gabatay taa halkaas aan kaga baxay